Donald Trump jab weyn ayaa ka soo gaaray dagaalkii uu Soomaalida Minnesota ku qaaday. yacni qasaaraha siyaasadeed ee Donald Trump iyo xisbigiisa ka soo gaartay arrintaas wax la qiyaasi kara maaha. iyo waliba tan shakhsi ahaan isaga u soo gaartay iyo siyaasaddiisa. dabcan haddee ICE olada dhaha ciidanka yacni xuduudda iyo waxaas wuxuu ugu diray Minnesota inay Soomaalida beegsadaan. ilaa haatan 2 qof ku dhimatay. يعني Soomaalida moogtahay iyagana dhibaato soo gaartay oo ganacsigoodii dad qaar oo dhuumaleysanayo sharciyaal ah dhibaato soo gaartay. hase yeeshee abaabulkoodii iyo wixii magaalada dhanac ka caaday. tiiba waxay keentay marka 2 qof inay dhintaan oo aan Soomaali ahayn. tiiba marka waxay keentay in nimankan beentoodii iyo wixii ay dadka ku qulaaminayeen banaanka timid. qof 4 dhinac laga sawiray oo ay leeyihiin xabadu haystay askartu hadadaay. hadduu qori haysto xitaa qori gacantiis ku jiro ma ahan gacmihiisa baa loo jeedaa yani dhaqaaqiisa baa loo jeedaa siday qoriga uga bixiyaan loo jeedaa siday u dileen loo jeedaa markaas ay leeyihiin halis u ahaa. tiiba banaanka timid waxay sheegayeen oo dhan banaanka yimid marka inay been ahaayeen. marka Soomaalidana faraj ayuu Ilaahay u furay. yani Soomaalidana dad sahlan ma dab yar ma shidayaan. waliba Minnesota abaabulkoodii iyo qaabkay wax u wadeen. hase yeeshee haatan wadanka dhana isqabsaday mudaharaadyo murashaxiinta xisbiga jamhuuriga qaarkood Minnesota Minneapolis governornimada u taagnaa way iscazilayaan. xisbiga jamhuuriga mas'uuliyiintiisa madaxdiisa su'aalaha la isweydiinaya waxa laga hadlayaa Trump kadib kursigii Trump ayaa halis ku jira. dagaalkii Soomaalida marka yani Soomaalida laftirkooda ma sahlana dagaalkoodii waa dad yar laakiin saameyntooda ما سهلا هقول سهلا ما